ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay in ka badan 20 way ku dhaawacmeen dagaal tan iyo saaki ka socday deegaanka Dacdheer oo u dhaxeeya xadka kala qaybiya gobolka Galgaduud iyo Itoobiya. Dagaalka ayaa salka ku haya aanooyin qabiil iyo dhul la isku haysto labada dhinac ee ku dagaalamaya deegaanka Dacdheer. qaar ka mid ah dadkii ku soo dhaawacmay deegaanka Dacdheer ayaa la soo gaarsiiyay isbitaalka guud ee magaalada Cadaado. Sidoo kale waxaa jira dhaawacyo la gaarsiiyay isbitaalka degmada Cabudwaaq. dhinaca kale maamulka Galmudug ayaa ka hadlay dagaalka ka dhacay deegaanka Dacdheer. wasiirka arrimaha gudaha Galmudug Maxamed Nuur Xayir oo warbaahin kula hadlay magaalada Cadaado ayaa ugu baaqay dhinacyada dirirtu u dhaxayso inay dagaalka joojiyaan shuruud la'aan. waxaan halkaan baaq nabadeed uga dirahayaa dadka walaalaha ee ku dagaalamaya magaalada Dacdheer. dagaalkaas oo saan isleenahay iskaga dhacay si maaragtay aan aqli ku jirin waayo waxa weeye dagaal maanta la dagaalamo faa'iido ma keenayo. 30 sano Soomaaliya dagaal ku jirtay wax laga faa'iiday iyo cid maanta oran karta waan ka faa'iidana ma jiraan. marka waxaan codsanaynaa dagaalkaas in la joojiyo say tahayna loo joojiyo sababtoo ah dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho lagamana faa'iido hadda wax faa'iido oo dagaal laga gaaraya ma jiraan. waa la dhimanayaa waa la dhaawacmayaa hadhowna meesheeda la joogaa. dadku waa dad walaala waa dad ehla waa dad qaraaba waa dad abti iyo habaryar iyo abti isku ah. waxa weeye wax marka laga faa'iideeyo maadaama dad darisa weeye intaasoo sanana meel ku wada noolaa. marka waxaan codsanaynaa dagaalkaas in la joojiyo dadka duulaanka qaadan ay ku noqdaan guryahoodii iyo meesha ka soo duuleen wada hadalna la furo oo dadka wada hadal loo furo ka wasaarad ahaan aanu ka qayb qaadan doono dagaalkaas asaga insha Allah hadii la yiraahdo. baxday hakinta dagaalka tan iyo saaka ka socda deegaanka Dacdheer. Cabdirasaaq Cali Silfa TV-ga caalamiga Tusma magaalada Cadaado.